ku dhaweeya kuwa ugu waaweyn ugu qiimaha badan waxa kamid ah inaad xoolahaaga baxsato oo sadaqaysato quraanka in badan oo kamid ah iyo xadiista nabigeena sallallahu alayhi wasallam in badan oo kamid oo la tira koobi karin ayaa arintaas aad loogaga hadlay ruuxa wax baxsada oo deeqsigo gacanta furan sadaqadiisu waxay keenaysaa maraaxishii xaaladaha ugu adag markuu marayo dadka kalena baqayaan oo ay cabsanayaan oo argagaxsan yihiin inuusan isagu nixin oo argagixin oo uusan murgin qabriga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa bahda Real Aldeeq Foundation Group farciisa magaalada Muqdisho aan ku sugannahay dugsigii aad wada taqaaneen caruurta agoonta iyo masaakiinta quraanka lagu bari jiray ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Dharkeeley. dugsigii ayaan maantay deeq ayna soo gaarsiiyeen walaalo ahlul khayr ah ee ugu horeyso walaashin Xaaji Xaawo oo degan wadankaas iyo Switzerland oo jeclaysteen wiilal ayadu ay dhashay oo la kala yiraahdo Cali iyo Cabdi Fataax. runtii maanta 40 ciyaal oo caruurta oo agoonta dugsiga kutubo quraama jeclaystay in aan gaarsiino kutubadii aad noo soo dhiibteen oo maasha Allah ugu tala gasheen caruurtii waan soo gaarsiinay. iyagana waxaan leenahay meesha ka soo saareen badal khayr qaba Allah ugu bedelo. maxaan ugu wada duceynaynaa caruuray khayr Allah siiyo aamin insha Allah. wad u jeedin caruurta inay idin duceysay qofkii kutub quraana bixiyana waa ajir aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay. dhanka kale waxa ila jooga macallin Busuri oo macallinka caruurtan ah runtii wax u dhiga. asigana waxaan leeyahay maxaad ugu duceynaysaa Cali iyo Cabdi Fataax oo muxsinada ugu weyn ee Aldeeq Foundation Group marwo Xaawo ay dhashay. علي عبد الفتاح وحان ugu duceynaa ajir iyo xasanaad aan la koobi karin inuu alla siiyo. Xaaji Xaawo ayadani khayr iyo ajir iyo xasanaad aan la koobi karin Allah siiyo. ilmaheedina Ilaahay ha u barakeeyo. ajir iyo xasanaad ayaan Ilaahay ugu togeynaa jannatul firdawsna ugu bashaarayna insha Allah. ما شاء الله آمين آمين ayaan leenahay. waa bahda Aldeeq Foundation Group oo mar walba khayrka iyo wanaagga u taagan iyo ka farxinta walaalaha muslimiinta tabaalaysan iyo kuwa duruufta haysaba. waa anagoo mar walba idin soo gudbinayno waxyaabaha khayrka iyo wanaagga laga hadlaya. waa anigoo Samafale Cabdishakuur Ashkar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.